aad baa ugu dhowhay magacaaga saddexan magacayga waxa weeye cabdisalaam axmed jaamac cabdisalaam oo maadaama haynin dhalinyaro ah jiraan isbiyaal badan marka urur qaybooyinka waa maqayin bismillaah raxmaan raxiim ilaaha mahad iskale waxa weeye xagga soo istaajiyay anoo nabad ah aniga ahaan shakhsiyaddii waxa taageersan ururka والله دي شخصيتي أنا تاجري وحوي أنا دورتي أول كاس دي أول دي أصلي ما توحوي هذا قبته هرمر بقاسين يا ولا كلا دي وهذا كاه وكلا دي وحوي دي واحد بدل وحوي وملين ما يدي هدي وحوي دي أول كهذا قبته أنا كل بقول كاس بوهستا وحوي أول كاس تاجر سنة هاي شخصيتي ذا لما هو حالي هدي وحوي مذيع ولا تاجر صوبته دي مذيع ومذيع ما قاعد أفهم يسوي حكستا قرتي دي هرمر aad weyn oo gaarsiinaya insha Allah Virginia waa ku dhawahay channelka Sahal Danuurshe magacaaga saddexan waxa weeye Sakariya Maxamuud Barre oo magac dheer abwaanka waxa tartamaya ururo badan ururka taageersan bismillaah rahmaan ururo badan baa tartamaya oo soo ogtihiin magaalada ayaantan xiisad baa ka jira ururada ah anigu hadaan ururkayga aan sheego qof walba urur bay taageeraysaa anu waxaan ku jiraa oo ka duwan gashanay ururka mideeye taageero buuxda aan ah ma sha Allah ururada waxa uga dartay ururkaas waxaan u arkay inuu yahay ururka dalka hay kara dalka iyo deegaanka anagu hadda aan joogno oo degmada ayna ururka ku soo bixi karo ama maamul kale baan u gartay inuu yahay ururkaas ururo kale waxa jiraan la tartamaya ururada la tartamaya waxaan baaq ugu diri lahaa dee ka urur ahaan urur kale baaq ma diri ka ururkaya waxaan leenahay meel kasta ay joogtaan guriga gobonimo isku ognahay inaad codkeeda ka leexin inta ka maqan inta ku jidha inaad cod ka leexin ururka mideeye waa ururka aan dhihi karo degmada ayl ama guud ahaan Puntland ururkaas maamuli kara iyo aan ku soo bixi kara uguna shacabka badan ku soo dhawo channelka Sahal Danuurshe adoohay magacaaga saddexan maxaa cabdirasaaq abdiraxmaan maxaa casaaqo maadaama tahay arday ugu firfircoon marka waxa jira ururo badan oo mataqaana ka tartamaya degmada ay ururka taageersan hortii arday baanahay siyaasadda horta waliga fiican laakiin soo garan karto horta jabi maadaama ururka la tartamaya maxaa ku dooratay jabi waxba wax qabad badan wuxuu ka qabtay degmada ya meesha soo kaabay muqtaar maxaa horeysay maadaama tahay dhalinyarada reer ayl nolosha aan ugu warsanaya degmada ayl marka waxa jira ururo badan oo ifaaltamaya ama tartamaya marka ururka taageersan tahay anu ururka waxa taageersanay sinaan iyo cadaalad ma sha Allah waxa jira ururo badan oo tartamaya sinaan iyo cadaalad marka ururada kale maxaa kaga dooratay ururada kale waxa kaga doortay sinaan iyo cadaalad sideedaba waa urur dalka iyo dadka wax u qaban kara ninka watana waa nin magaciisu aad u dheer yahay waana ilaawi karin meel yiraahdo waxay ugu soo dhicin ku dhaafay shaqo badan iyo wuxuu qabtay iyo ragnimadiisa wax badan uu ka qabtay sida awgeed ninkaas waxa la dhihi karaa waa nin dalka iyo dadka u soo jeeda ma sha Allah marka maadaama dalka dadka u jeedo ururka taageersan tahay ururada kale maxaa ku dhiirigelinaysaa ururka wax ku dhiirigelinaya ninkaas sidiisaba nin lama magacaabo ninna kabihiisa lama gashto balse ninka waxa fiican qofka dalka iyo dadka baad u ka shaqeynay in lagu dayado baa muhiimada fiican ninkaasna waa nin dalka u baahan ilaahay waxa uu ka rajeynaynaa insha Allah inuu ilaahay wuxuu jecel yahay ilaahay uu la garab qabto waa ku dhawaad magacaygu waa Saciid Daar Jaamac anu waxaan taageersanahay ururka mideeye ururka waxaan ku taageersanahay wallaahi ururka wax qabad badan bay noo qabteen wax qabad aan la soo koobi karin bay hadda noo qabteen ururku oo ururo magaalada ka tirsan aysan noo qaban bay noo qabteen waan ku taageersanahay ururada kale maxaa dhiirigelinaysaa maadaama waxa leeyahay ururada kale inaysan mataqaanaa aysan iyo jabin oo mataqaanaa ay ururkaas si ay u soo hangaar lahaayeen inay falkeeda galaan
kusoo dhawo channelka Saaldan Nuurshe waan dhawahay boqolkiiba boqol anigoo ah Yacquub Cabditaahir Mahad Ibraahim oo dugsi sare ma sha Allah Yacquub waxa jira ururo badan maadaama aad ugu tahay arday habkii dugsi sare maraya marka ururkee ma taqaana taageersan hortii anagu waxa wixii wax qabad wada wala soconaa hortii anaga ka hadaan ilaa hadda ilaa waagi waana wadaxana noo tarin marka anagu wadax ku jirnaa jabiya wadanaa meesha doona naga tuuray ma sha Allah waxa ururada kale kaga doorata marka aan kaga doorto dooro ilaa hadda ninkaas oo wixii xilka qaban wax qabad muuji kusoo dhawo channelka Saaldan waan dhawahay buu macaan aniga waxaa ilaahay maxamed cabditaahir kuna nool degmada ayl buu maxamed waxaad tahay dhalinyarta ay magacayga saddexan horta waxaa ku caanahay suldaanka ku caanahay magacayga waxaa la dhahaa maxamuud cabditaahir mahad bulxan waxaa jira ururo badan marka ururadaas anigu waxaan taageersanahay urur la yiraahdo sinaan iyo cadaalad ururka ummadda u baahan tahay waaye niw ururkan wax badan oo cad oo la arkay bay qabteen sida hadda wadadii waagi ay ka xirmatay oo kale oo midaan ciida biyaha daadkii waa ogeyd xoolaha injineerka yimi jirjibiye waa saga midaan cagaafto soo saga madaxweyne ahayn xataa dadka reer ayl wax badan u qabsanayo fara badan iyo aylkiya maaha waxa jira degmooyin badan sida xasbahalle godob jiraal dhagalle waa badan yihiin beelo badan baa jira ma sha Allah aad oo mahadsan tahay waxa ku dhiirigelinaysaa ururada kale ee la tartamaya waxaan ku dhiirigelinayaa ururada kale in ay noqdaan sida mataqaanaa ururka sinaan iyo cadaalad sida wax badan oo muuqday qabteen wax badan aan aragna waa qabteen ما شاء الله وكله وهاي مقعي وعبدالشيء عثمان محمد عبد الله وحنا كنت سنة هاي دقمة أيل واحد ururo badan oo ma taqaana tartamaya marka ururkee hay'adsan ururo badan oo sagaalka urur waxa ka tirsanaa ururka la dhaho ka aad iyo aad baa u taageeraya waana soo dhaweeyaa waxaan kalsooni baa ku qabaa ururka soo baxaya weeye ee koowaad ee codkana siiyo weeye ka waxaan ku taageeray ururka madaxda ka socota iyo madaxda sare baa ku taageeray ururka ka adaan mudan soo dhawo channelka Saaldan Nuurshe aad iyo aad baa u dhawahay walaal magacay waa Cabdulmudallib Axmed Cabdi ku nool degmada Ayl Cabdulmudallib ururo badan gaar ah tartamaya oo ma taqaana doorashooyin waxa uu tartamaya marka ururkee taageersan tahay walaal anu waxa taageersanahay ururka dawladda oo la yiraahdo ka ma sha Allah maadaama ka taageersan tahay ururo badan ay la gacali ururka ka waxaan kaga doortay waa ururka fursadda ugu qaalisan oo Puntland hadda ka shaqeynaysa ayaan ku dhiiriday inuu sameeyo nidaamka xisbiyada badan oo dawlad ahaan isagoo ku dhiiriday inuu sameeyo nidaamkaas dad badan oo aan codad heli jirin oo aan baarlamaan ka qayb gali jirin ay fursad u noqotay ay u badan yihiin dhalinyarada marka wuxuu ku leeyahay abaalmarin buu wuxuu ku leeyahay Puntland in la taageerana xaq uu leeyahay walaal ururada ka tartamaya waxaan leeyahay walaalayaal waa fursad qaali ah fursadaas oo fursad u baahan laga faa'iideysto waxaan leeyahay mucaaradnimadu ma ahan in barnaamijkan nimadu ku jiro in la hanjibiyo ma ahan waa inay ururadu sida systemka oo tibag ay tixgelisay waa inay u soo tartamaan mana ahan dawladda dacayadan jirin lagu abuuro aad iyo aadna waxaan uga xumahay dadka aan kala saari karin nidaamka ururada badan iyo nidaamka dawliga aan kala saari karin dawladdu waxay si anshaxa isaga ilaalisay inay isticmaasho hantida dawladda maalin dhaweyd oo u tartamaya ururka sinaan iyo cadaalad waxaan la yaabay inay soo kaxaysteen ardaydii oo casharka qaadan lahaa oo ay ka dhigteen shicib iyaga u soo bannaan baxa marka waxaan leeyahay dawladdiina waxaa ku daliilaysaan inaad tiraahdaan waxay isticmaalaysaan hantidii dawladda iyagoo wasiirro ah oo ka soo tegey gawaaridii ay shaqooyinka ku qabanayeen ugana soo tegey inaysan meel aysan ka saamayn inay hanti dawladda isticmaalayaan
magacayga saddexan waa Ibrahim Maxamed Aadan صح أنا شخصيا خضر waxaan taageersanahay xisbiga ka maadaama ay jiraan ururo badan oo la xisaabtamaya ama la tartamaya marka ururada kale waxaan kaga doortay xisbiga ka ururka ka waxaan ku doortay siyaasaddiisa baan ka helay iqancisay ururada kale waxaan ku dhiirigelinayaa kullay way caddahay dee ururkayna kuwa cad ka inuu yahay dee kaahna waa iska dareemaysaa magaca ka dareemaysaa iyagana waxaan leeyahay iska soo dadaala baan leeyahay